wacan oo wanaagsan guud ahaan akhyaarta qiimaha badan ee aanu hawada ka wada xidhiidhna waa mar kale iyo marso oo idin leh ku soo dhawaada warma aanu diiradda ku saarayno hadhaagii daaquudkii cadowgii dowladii kacaankii siyaad bare gumaadkii iyo burburkii shacbiga reer Soomaaliland ay kula kacday waxa ilaa iyo haatan gabood falladii ummadda ay u geysatay diihaalkoodii aanu ka bi'in kumanyaal qof oo ku dad iyo duunyaba beelay haddana aan u ciil qabin oo garwaaqsan wixii ay u dhimanayeen in ay heleen oo ahayd xorriyadda ay Soomaaliland ku naaloonayso waxse weli hadhila oo ciil qab xuni uu haya waa Maxamed Cabdi Yuusuf iyo Guulwade oo waqti xaadirkan ku nool Muqdisho oo si bareer ah oo cadaawadi ku jirta uga hadlaya xasuuqii loo geystay dadka reer Soomaaliland isla markaana weli hanjabaadyo ama hanjabaya oo Maxamed Cabdi Yuusuf hadal asraar iyo edab darra ah oo dhibanayaal badan jiif iyo joogba u diiday la soo fariistay warbaahinta taasi oo uu ka marakacaysa doorkii uu ku lahaa gumaadkii shacbigani ay u geysatay dowladii kacaankii ee afweyne bare qadar aan idin kala yara baxa ee daawasho wanaagsan waxa lagu deeyay wada hadalay Soomaaliland lagu waayo awood military lagu muqooninayo xoog military صح oo dawladda Soomaaliya inay muqooniso maamulka kala go Soomaaliya waa sharci darro waan cidna ma matelaan nimanka meesha jooga dambi qarankii weynaabay galeen dalka Soomaaliya kala gooyeen midnimadiisa meel kaga dhaceen soo garimis calankii bay gubeen waxayna waana la dadkii laayeen ba kun goor ka badan inta ay dagaalka ka dhimatay iyadoo loo shaqeynayo wadooyin loo dhiso warshado loo dhisayo iskuulaad loo dhisayo gacanta lagu hayla shaqada siinayo iyo inta amxaara u tageen qoriyo ka soo qaatay la soo duuleen bay burbari hargeysa iyo burcantay soo galeen calanka Soomaaliya tuureen oo gubeen oo laayeen guriga intay fuuleen qoriyo la fuuleen soo garimis يعني dambi qaran la galay kii ugu weynaabay galeen mataqaanaa marka waxaad leedahay talaabooyinkii dawladda dhexe kula dirirtay way saxsanaayeen dawladda dalka difaacis yaa gardar min dalka kala goynayo cadawga Soomaaliya la soo saftay oo calan kala wato dalka kala goynaya iyo ninkii difaaci ka gardar Soomaaliya qaranimo horta ma taqaana qaarkood waxay dad qaar ku doodayaan in ay markaas ka cabanayaan cadaadis saaran justification ma aha waxa weeye Soomaaliland kala goynaya calankii Soomaaliya gubaya amxaara iyo cadawga wada dagaalamayna u tagay la soo safanaya justification ay keeni karta male apologies ka hatta la siinaya qalada waxa weeye shacbiga dhibaatada ku dhacday ayaga ka waxa aan la hilmaami karin oo isweydiin mudan awoodda uu sheegay in Soomaaliland lagu muqoonin doono maxaa loogu sugi waayay amniga masaakiinta xamar ku nool ee qaraxa iyo dilku dhameeyay ee wadooyinka Muqdisho ku dhamaaday maxayse madaxda maamulka Muqdisho ee farmaajo u horeeya uga dagi waayeen gaadiidka amisom ee aanay la'aantood dibadda u soo bixi karin dabcan waa ciil qabayaal iska hadlay oo dhiiga ummadda qalbigu u madoobeeyay waxse aanay ogeyn in aan marnaba la saamixi doonin oo agar qabayaasha odaygani uu ku jiro iyo Guulwade iyo welibana kuwa kale ee la halmaala ee hadhaagii kacaankii xadgudubyada iyo gabood fallada ummadani u geystay aanay ka warhaynin oo aanay garanayn in maxkamad la soo taagi doono sidii kuwii ka horeeyay ee Tuka iyo Cali Samatar waa Cabdirasaaq oo idinla tan iyo kulanti dambe oo xiiso leh waxa aan idinku dhaafayaa wabillahi tawfiiq wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh